السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يكسر هذا القناة كنسوي كميديا قضبدين وقوين ما انتم حايكليهين سيلفيا رومانيا oo ka degtay Roma kadib markii laga sii daayay kooxaha afdubtay magacaygu waa Muslim Axmed si fadlan u cusubtahay channelkan subscribe noo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo maadsan aadna ku soo dhawaad warkii faahfaahsan. سيلفيا oo ah haweeney samafal ka shaqeysa ayaa maanta ku laabatay magaalada Roma kadib markii laga sii daayay kooxo dabli ah oo in ka badan sanad iyo bar afdub ugu haystay Soomaaliya. سيلفيا oo kooxdan dableeyda ay ka soo afdubteen dalkaasi Kenya bishii November ee 2018 ayaa waxa ay ku haysteen gudaha dalka Soomaaliya. سيلفيا ayaa waxa garoonka diyaaradaha caalamiga ah magaalada Roma ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga halkaasi oo ay caga dhigatay diyaaradii ka qaaday magaalada Muqdisho. سيلفيا ayaa waxa la arkayay iyadoo aad u faraxsan oo dhoollacadeynaysa isla markaasna habsiinaysa hooyadeedii walaasheed. aad ayaan u faraxsanahay iminka waxaan doonayaa oo kaliya inaan la midoobo qoyskayga oo aan muddo arag ayay tiri سيلفيا. diyaaradii سيلفيا ka qaaday magaalada Muqdisho ayaa waxay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Roma labadii duurnimo xilliga Roma waxaana dadkii ku soo dhaweeyay halkaasi kamid ahaa ra'iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kamid ah qoysaskeeda. nasiib wanaag jir ahaan iyo maskax ahaan waa wanaagsanahay. aad ayaan u faraxsanahay kadib wax badan waan wanaagsan tahay inaan soo laabto ayay tiri سيلفيا. سيلفيا ayaa waxa la arkayay iyadoo xiran dirac baati iyo xijaab. سيلفيا ayaa waxa si diinteeda ka qayb qaatay kooxaha la aqoon iyo hay'adaha maxalliga ah. gudaanta say ku soo gabagabina wararkeena warkaan warkiintan kulmi doono waxaan kaga tagay sidaas iyo amaana Allah.